waxaan ka hadlaynaa macdan qaali ah oo loo yaqaano tourmaline ama macdan ka tirsan gemstoneska. Tourmaline waa macdan aad caan u ah oo ka tirsan qaybta loo yaqaano gemstones, waxaana caan ka dhigay midabadeeda tirada badan iyo meelaha ay bahwadaagta la tahay, waana macdanaha naadirka macdan ka mid ah. Sidoo kale waa macdanaha ka qaalisan dahabka. Sidoo kale waa macdan loo isticmaalo waxyaalo badan oo qaali ah. Sidoo kale midabada tourmaline waxay noqon karaan cagaar, casaan, buluug, madow, binki iyo kalarro kala badan. Marka aan ka hadlayno tourmaline ma ahan hal wax shay lagu qiimeeyo, waa shay qiimayaal badan yeesha, waana shay lacaga badan jooga, waana shay laftirkiisu kala sarreeya, waana dhagax markuu guuraba dhagax kale oo qaali ah magaciisa u wareegi karo. Tourmaline xaggee laga helaa? Waxaa laga heli karayaa dhul leh dhagxaantan macdanta sida garanate iyo dhagaxa loo yaqaano lithium iyo dhul macdan badan oo lithium leh. Sidoo kale dhagaxa loo yaqaano pegmatite ayaa laga heli karaa buuraha leh ama dhulka leh. Inta badan dhagaxani waa dhagax laga helo meelaha buuraha ah oo qalafsan iyo dhulka volcanic ah iyo togaga, waa dhagax laga helo. Dadku way heli karaan, in la helaa waxay ku xiran tahay aqoon, caqli iyo feejignaan. Markaan macdanta dhex joogno waxyaalo badan oo dadka ay Soomaaliyeed wax ku qiimeeyaan oo aan wax lagu qiimeyn ayaa jira. Sidoo kale noocyada ugu qaalisan magacyadooda waxaa la yiraahdaa dhagaxaan. Marka aan aadno qaalisanaantooda iyo kala sarreyntooda waa wax muhiim inoo ah inaan ogaano. Marka halkaas ayaan haddana eegaynaa. Waxaa ka mid ah Brayba tourmaline waa dhagax aad u qaali ah, ranking-kiisuna wuu sarreeyaa markii tourmaline la joogo. Waxaa kaloo qaali ah neon, blue iyo sidoo kale green iyo rubellite. Ayaguna waa macdanaha qaaliga ah ee uu ka mid yahay dhagaxaan tourmaline. Tourmaline markii lagu yiraahdo asaga ayaa laftirkiisa ayaa magacyo badan sii leh, qiimahiisuna kala duwan yahay. Laakiin tourmaline waa magac common ah ama la isugu yimaado oo bahwadaag dhan ay group ku yihiin oo group uu hogaamiye u yahay. Waa magac aabba ah. Kadibna intii uu dhalay ayaa qiimaha iyo jaangoynta suuqa iskale oo halkaas ayaa laga helayaa xogta dheeraadka ah. Marka waa inaan sidaas ula fahanaa. Marka qiimihiisa sidoo kale waxaa jira chrome tourmaline oo asaguna ah cagaar dhalaalaya. Waxyaalahaas oo dhani waxay tilmaan u yihiin magacyada, awoodaha, dhaqaalihiisa, qaalisnimadiisa, magac dheeridiisa, xogaha ku qarsoon, inta uu kala gaari karo iyo inuu tiro badan yahay. Sidoo kalena uu yahay dhagax naadir ah. Intaa markaan isla fahanno waxaan isla fahanay xog aad u weyn oo aqoonteena ku saabsan. Adiga haddaadan baran aqoonta macdanta kama samaynaysid dhaqaale, laakiin waxaad samaynaysaa wareer ayaad ka samaynaysaa. Sidee macdanta dhaqaale uga samayn karaa? Waa su'aal meesha ku jirta. Waa inaad waqtigaaga geliso, waa inaad lacagtaada geliso, waa inaad niyadaada geliso, waa inaad ka fikirto, waa inaad dadaal samayso, waa inaad ku xiiqdo, waa inaad biilkaaga ku bixiso, waa inaad maalmo u qadi karto, waa inaad awooddaada oo dhan isugu geyso. Markaas ayaad waxaad noqon kartaa ruux xilli yar milyaneer ku noqon kara ama bilyaneer. Marka hadda lagu leeyahay Chrome oo kale iyo Google iyo shirkadahani qaarkood macdan ayay ka soo bilaabeen shaqada oo heerkan ku gaareen. Dadka qaar baa iyagoo casarkii sabool ahaa habeenkiina sabool ku seexday, subaxda dambe dhagax qaali ah helay.
maalintii dambena ganacsada weyn noqday ama magaciisa caalamka boorarka lagu wada qoray. macnaha macdantu waa caddaan iyo madow, waa faqri to hantiile, hantiile to faqri. qof hantiile ahaa ayaa hantidiisoo dhan gelin karaa, jaaniskuna waa isu diidi karaa, waa ama wuu ku dhoofsan karaa, macdun u dhoofsan karaa intuu iibsado, wayna ka degi karaan ama waa laga dhici karaa, hal mar buu khasaari karaa. macdantu marka waa caddaan iyo madow, waa horumar iyo hoog, waa harsi iyo himilo, waa hunguri iyo horumar la-aan. marba dhinacii loo dhigo ayay hantidaani noqon kartaa macdanta la yidhaahdo. macdanta yaa heli karaa? waxaa heli karaa qof aqoon u leh, qalab u haysta, meesha ay jirtana yaqaana, raadinteedana waqti ku bixiya, aan caajisin, qarfo u mara, jiilaal u jooga, dhul kulul u mara, dhul qabow u mara, buur iyo bannaanba u mara, danihiisa u khasaariya, lacagtiisa ku fangareeya, samir iyo adkaysi dugaashada. qofka ayaa macdanta heli karaa. sidoo kale waxaa heli kara qof aqoonta bartay, shirkado iyo dad injineer u ah, u fududeeya mashaariic, meel loo dirsaday sawirro ka soo qaada, data ka diyaariya, xog ka diyaariya, qandaraas weyn qaata, budget weyn ku saxiixa, halkaa lacag weyn ka qaata. sidoo kale waxaa lacagta macdanta oo lacag ka samayn karaa qof macdanta dhoofiya ama dullaala, lacag buu ka samayn karaa. yaa kaloo macdanta lacag ka samayn karaa qof aqoonta macdanta aada u barta kadibna dadka bara. macdanta qof qalab macdanta lagu baaro keensada kadibna dadka macdanta u baara, asna lacag buu ka samayn karaa. qof waxaa lacag ka samayn karaa qalab macdanta shiida, burburiya, kala saara, sifeeya, qora, dhaqa, wax walbo macdantu heer kastoo ay tahay ka shaqayn karaa, keensada, kadibna ciddii wax u keensata lacag kira ah ama markaas lacagta samaynta ama hagaajinta ama burburinta ama shiidida ama kala saarista ama commission boqolkiiba aad tirsi laysla yaqaanaa ka qaata. macdanta isaguna dhaqaalu ka samayn karaa. macdanta 20 iyo 30 wax ka badan ayaa wax looga samayn karaa. marka macdan haddii loo baahdo in wax laga sameeyo waa dariiq aad u fudud. ha u malayn inaan macdanta lacag laga samayn karo, waa laga samayn karaa, si badan baa looga samayn karaa. marka aan ku soo noqdo qaybteennii hore aan ka hadlaynay ee dhagaxa tourmaline, haddaanu nimaano dhagaxan xagee laga helaa tourmaline, wuxuu inta badan la socdaa quartz-ka, bayralka, feldspar-ka, lithium iyo tin. shayadaas waa shayada uu aadka ula socdo, inta badanna waa laga heli karaa si joogta ah ama si badan. qofka raadinayaa muhiim waxa ah inuu cimilada yaqaan, inuu dhagaxda yaqaan, inuu sawirkooda guud yaqaan, inuu qalabka habboon haysto, inuu wax fahmo, inuu xariif xiriiraha qaar ka mid ah laab u diri kara yahay. intaa waan isla fahanay. marka anigu waxaan ahay hagihiina macdanta, waxaanan mar walba idinku hagi doonaa sida aan habba maalin walba wax cusub idinka soo hadli lahaa iyo xilli walba. aniguna waxaan idinka rabaa inaad barnaamijka like garaysaan, share garaysaan, subscribe garaysaan, mar walbana aad ku xirnaataan, inaad tustaan inuu taageeriyo asxaab leeyahay. sidoo kale waxaa jira barnaamijkeennii isdiiwaangelintii ardayda macdanta aan baraynay, ardaydaas oo buug hadeertan loo hayo, casharo toos ah oo wada confrontation, wada sheekaysi toos oo aanu yeelano ay diyaar u yihiin. sidoo kalena hadda buugaa kale loo soo wado, ayagu qorshahaas oo hal mar isdiiwaangelina bixiya,
kadibna barnaamijka barta. waxaa jira macdan baaristii online-ka ee sawirada oo automatic ah oo khadka ka socota. qofku sawir qurux badan hadduu soo diro si baaris fiican loogu baaro sawirkana lala wadaagay xogta. soo dhawaada mahadsan. xogtan waxaa idinla wadaagay anigoo ah Cabdullaahi Siciid Sheekh Xasan, mar walbana ah saaxiibkiina halkan jooga. wixii faahfaahin dheeriya commentiga ama WhatsApp lambarka ama telefoon ahaan intaba kii qofku awoodo uu ila soo xiriiri karaa. mahadsanidin xilli walba aad baan idin ogolahay halkan aan idin fadhiyaa.